بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال idin ahaantiin waxaan leenahay meel walba joogtaan soo dhawaada page-kayga iyo waliba faaqidada kulamada derbiga ah ee maanta laga ciyaarayo qaaradda Yurub. sidoo kale kulanka waxaanu faaqidaadi doonaa oo rabnaa inaan kala dhigno kulanka maanta ay ciyaarayaan Aston Villa iyo Manchester United oo xaaladeedu alu sahal tahay ayaantan iyo waliba Aston Villa oo form fiican kaga jirto Premier League iminkan oo ay kaga jirto kaalinta shanaad kala horeynta ee Premier League. sidoo kale waxaan rabaa inaan macnaha idin kala hadlo maxal lahaa tusaale ahaan Man United ayadana 14aad kaga jirta kala horeynta table-ka ma qaybta kala horeynta ee dalkaasi Ingiriiska Premier League. marka form ahaan maanta waxaan ka hadlaynaa qaabka ay u ciyaaraan waxyaabaha iyo waliba laga filan karo kulanka Manchester United maanta kulamadii ugu dambeeyay sida uu soo kala ciyaareen Manchester United iyo kuwa Aston Villa maanta ciyaarayo oo hartamaya Aston Villa oo gurigeeda maanta lagu ciyaarayo sidoo kale into Manchester iyo waliba Aston Villa line-up-kooda ama sida ay u kala safan doonaan ciyaartooydooda oo idin sheegaya Aston Villa oo ay sida normally gaba ku bilaabeen line-up-kooda saxda ah ee soo baxay imikan 3 galabnimo ay ka ciyaarayaan maanta dalka Koonfur Afrika markay saacadeeda u fiirino ama Europe waa 3 galabnimo. sidoo kale markii aan u fiirino bariga Afrikana waxay noqon doontaa 4 galabnimo sida u taqaanaan. haddaba ciyaarta iyo formka iyo line-up-ka ay ku dheli doonaan labada kooxood ciyaartooydooda ayaan idin sheegi doonaa. waxay tahay sida Martinez oo ay ku bilaabeen kooxda Aston Villa Manuel Martinez sidoo kale into ninka la yiraahdo dabeedka bidix kaga ciyaara ciyaaryahanka Lucas Dignes iyo sidoo kale Pau Torres iyo Ezri Konsa iyo sidoo kale Matty Cash oo 3-4 gadaale ay kamid yihiin. sidoo kale waxa uu macalinka ku dheelayaa waa 4-4-1-1 line-up ka la yiraahdo ama tacticada ama shaxda oo ah 4-2-4-4-1-1 ah. afarta dhexe wuxuu ku dheelayaa Pele oo sigana dhankaasi bidix oo ka ciyaaraya dhanka weerarka, Yuri Talisman oo asna dhaxda ciyaarayo iyo Rosie Barkley iyo Joy Phillips sidoo kale Morgan Rogers oo asigana qadka dhexe caawin u ah ninka la yiraahdo Ole Watkins oo tuuran oo afka hore ah. markaasi shaxdiisuna ay tahay 4-4-1-1 waa qaabka oo u ciyaarayo Unai Emery tababaraha kooxda Aston Villa. sidoo kale waxaanu rabnaa inaan ogaano kooxda Manchester United iyo qaabka ay u soo shartageen maanta oo ay ku bilaabeen sida normaliga ahay Onane goolhayahooda ahaa, Dalot oo dhanka midig kaga ciyaaraya, sidoo kale John Evans iyo Harry Maguire oo qadka qaybta dambe ee dhaxda ka ciyaaraya, Mazraoui oo asigana dambeedka bidix kaga ciyaari doona oo asiguna u dheelaya, sidoo kale Kobe Mainoo iyo Eriksen oo ayaguna dhaxda caawin u tahay afarta dambe ee caawin doonaan. sidoo kale Marco Rashford, Bruno Fernandes iyo Garnacho oo ayaguna 3 kaleento weerarka ah oo Hojlund oo markaasi caawin doona number 9. marka shaxda oo kusoo shartagay tababaraha Erik ten Hag waxa ay tahay waa 4-2-3-1 ama sida loo yaqaan waa 4-2-3-1 4-2-3-1 waa qaab weerareed qadka dhexe dhan oo markaas isku dayo inuu cishto qadka dhexe oo markaas xoog soo saaray oo macnaheedu ay tahay 5-4-5-1 ay macno tahay. labadan dambo waxay caawin u yihiin 3 weerarka ah oo Rashford, Garnacho iyo Bruno. Hojlund oo markaasi oo noqon doona number 9ka ama numberka 9aad ee tuuran ee weeraryahanka ah. haddaba marka fiirino labada shax isleenahay
labada shax oo labada kooxoodba ay ku ciyaari doonaan ayagana waa 4-2 oo markaasi oo ka dhigtay 3-1 waa shaxda si automatic ahaan oo u bedeshtay tababaraha marka asiguna Unai Emery oo Ebel wuxuu kusoo galayay ahayd 4-4-1 oo kusoo galay shaxdiisu ahayd laakiin automatic ahaan baad wuxuu u bedeshtayba shaxda si rasmi ah oo ay si isku mid ah markaas oo ka dhigtay inay isku ciyaaraan laakiin shaxduba waxay noqotay in dhaxdu la iskugu wada yimaado oo labada kooxoodba ay dhaxdu markaas ay noqotay qaybta caloosha ah ee laga dagaalami doono yaa markaa dhexdiisu ay adkaan doontaa markii la fiiriyo Yuri Tillmans iyo Rosie Barkley oo ay dhaxdu ay keeneen macalinkan waa Leo Pelé iyo sidoo kale ninka la yiraahdo Bidasi iyo Morgan Rogers inta oo dhaxda ah iyo dhaxda Man United oo Aubameyang, Eriksen, Marco Rashford, Bruno Fernandes iyo weliba sidoo kale Garnacho markii inta la isku keeno iyo inta ay Aston Villa ku dheelayso record ahaan maanta maxay leedahay haddii aad taageera fadlan noo follow garay page-ka share garay si ay asxaab fara badan ay u gaarto page-ka la follow gareeyo like commentigana hoos inoogu reeba commentigiina iyo fakarkiina ku aadan waxa is leedahay maanta kulanku way ku soo dhamaan kartaa Man United baa badin karto is leedahay maanta away ah pressure uu saaran yahay macalinka Erik ten Hag oo kulankiisa ugu dambeeyay uu yahay haddii laga badiyo dirishadiisa iyo boorsadiisa uu qaadanayo dirishada ka baxayo haddii uu badiyana I don't know macnaheedu ay noqon doonto in Man United markaas Janis ay siiyaan inuu sii joogo laakiin 3 kulan ayaa hore loo siiyay kadib kulankii barbarada oo la soo galay kooxda Twente ee ka dhisan dalkaasi Holland ama Netherlands sida dadku taqaanaan Holland iyo Netherlands waa isku mid laakiin kooxdaasi marka ay isku arkeen UEFA Euroga ay isla galeen 1-1 oo ka badi kari waaye waxa markaas la siiyay 3 kulan oo ahayd Tottenham, FC Port iyo sidoo kale waxa la siiyay kulanka ahaa kulanka maanta Aston Villa haddee Tottenham waa laga soo baji oo dhagaha laga soo garaacay oo 3-0 lagu soo garaacay xitaa way awoodi waayeen Man United ay gool dhashato sidoo kale adiga doraadii si qalqiila ku badiyeen ayagoo red card qabaan ninka Bruno la dhahayo cayaanka ku kacayaan tan I don't know macalinka waxa ka rabiyaa inuu macnaha xaaladda ku xumeeyo macalinka rabaa inuu buriyo oo yani cayaanka ku kacay hadal fara badan meesha Premier League sharciyo fara badan lagu soo kordhiyay qofka hadla ciyaaryahanka hadla dood la gala buuq la galo refereega ama arbitra ama garsooraha sida uu taqaan in yellow qorta laga gelinayo hadda doraad maalin dhibay markii champion ku dheelayay asigu foul galay oo hadana muran si galay dagaal qararac jaalihiisa ugu horeeyay ku qaatay muran iyo buuq iyo qeelo aanan macnaha aanan lahayn waqtigaas marka waxay macnaha la tahay in Bruno oo qayb ka yahay ciyaartooyda aanan rabin in Manchester United uu sii joogo Erik ten Hag ten Hag way kaga dhamaatay Premier League ten Hag maanta kulanka ugu dambeeyay waaye xataa haddii uu badiyo I don't think inuu macnaha uu joogi doono sababtoo ah Manchester United uma cadda ninkan inuu wax u qaban karo formka ay maanta ka joogto Premier League markii la fariyo 7 kulan ee la soo dheeray oo kulanka 7 maanta uu ka yahay haddaba tusaale ahaan marka ku siiyo 7 kulan kooxda Aston Villa marka kaaga hadlo 5 kulan ee la soo dheelay waxa ay soo badisay 3 ay xiriir ay soo badisay 1 kulan laga badiyay halna draw ay soo gashay 5 kulan ugu dambeysay marka Unai Emery formka oo ku jiro maanta in xagga badinta waxay tahay form aad u wanaagsan markii loo fiiriyo Manchester United ayadana maanta ninka la yiraahdo Erik ten Hag 5 kulan oo soo dheelana 3 kamida waa laga soo badiyay hal oo kaliya soo badiyay halna barbaro oo soo galay tusaale marka waxa uu haystaa waa 7 dhibcood pointska oo haysto waa 7 dhibcood Unai Emery waxa uu haystaa waa 13 dhibcood farqiga u dhaxeeya waxay tahay waa 6 dhibcood waay daas waa ay ku kala joogan kaalinta 5aad iyo kaalinta 14aad kala horeynta Premier League marka tusaale ahaan marka ku siiyo
kala horeynta Premier League haddii ay ayagu markaasi ay noqotay kooxda Manchester 13 ee kaga jirto Premier League. Erik ten Hagna maanta oo pressure fara badan saaran yahay haddii uu badin waayo iyo haddii uu badiyaba kulankiisa ugu dambeeyo uu yahay Manchester markaasi ayagu laga rabo gudigooda inay go'aan ka qaataan xataa haddii uu badiyo ma malayn doonaan maanta tusaale ahaan marka aniga aan fiiri analysis aan ku sameeyay qaabka iyo nidaamka uu markaasi ku joogo Erik ten Hag sababta ugu weyn ayaa waxa ay tahay dadka faaqido ciyaaraha waxa ay markaasi kubadda cagta faaqido waxay markaasi dusha ka saareen aad u weyn ninkleera Erik ten Hag sababtoo ah waxay yiraahdeen ten Hag kaliya wuxuu yaqaanaa sida loogu ciyaaro ciyaartooyda ka yimaada dalkaasi Holland it means macnaheeduna waxa ay tahay ciyaartooyda asigu Hollandeeska la ah ciyaartooyda oo asigu ka keensaday Holland oo Ajax oo kala yimid oo kaliya u yaqaan si loogu dheelo ayagina waa ay fashilmeen xaqiiqda marka ka la hadlo ninka la yiraahdo waad aragteen meeshuu ka baxay ninka TikToker kala ah oo inuu TikTok lay maanta iska duubo inuu dheelo inuu macnaha boodboodo inuu ka boodboodo rabo waa aragtay meeshuu marayo ciyaaryahankaas waa Anthony ninka la yiraahdo mar walba wuxuu ku soo fariistay waa benchiga maxaa sababay waxay tahay formka oo macalinkan rabo inuu dheelsiiyo Manchester United ma ahan formka Manchester United ugu talagalay tusaale yar ayna siiyo marka saddex kooxood Premier League ka mid ah markii ayna kala hadlo Premier League kooxaha ka mid ah saddexda kooxood Big Six markii laga hadlo saddex ka mid ah waxay u dheeshaa waa form normally ah oo Bruni ay jeceshahay inay dhistaan oo back up ama ay sameeyaan ama build up kooda gadaal ay ka soo dhisaan ay jecel yihiin fahmahan saddexdaasi marka tusaale ka siiyo waa kooxda Arsenal waa kooxda Manchester City iyo kooxda Tottenham waa saddexdaas waxay rabaan mar walba inay sameystaan in Bruniga gadaal laga soo dhiso Bruniga markaasi oo noqdo mid qadka dhexe ilaa ay afka hore la isku xiro ay jecel yihiin waxa ku soo haray marka Big Six markii la saddexdaas aan ka reebo waa Tottenham Arsenal iyo City laga soo reebo waxa soo hartay waa saddex kooxood oo Liverpool Man United iyo Chelsea marka Liverpool Man United iyo Chelsea saddexdooda markii la sameeyo Brunigooda ma aha kuwa ku tiirsan in gadaal ay ka soo dhisaan waxay ku tiirsan yihiin ku dhufo ka dhaqaaq barnaamijyada la dhaho inay maanta weerar soo ridaan dignuuf orodka Bruniga la orday garbaha laga ciyaaro Bruniga in dhaxda markii la keeno la soo tuuro dhaxda la keeno la biibiyo hadana ku kala loo tuuro hadana la isku day counter attack in wax lagu raadiyo mar walba marka suurtagal ma noqon karto in Bruniga counter attack wax ku raadiso in mar walba marka suurtagal ma noqon karto Bruni aan gadaal iyo dhaxda aan ka soo dhisin oo aan isku join gareynin oo mid isku dhisan oo adag aan ka dhigin suurtagal kuma noqonayso marka ina markaas aad gool ku dhaliso in weerarkaaga markaas oo noqdo mid laga cabsado Mohamed Rashford iyo Garnacho la saaray baalash weerartamaya way ordayaan way soconayaan laakiin wuxuu ku soo dhamaanayaa indile soo noqonaya waa Bruni aan natiijo lahayn oo natiijo la'aan ku dhamaana sababtoo maxaa ka dambeeyo sababtoo ah laguma soo dhisin Brunigooda gadaal lagama soo dhisin dhaxdana lagama dhisin dhaxdoodu ciyaartoy wanaagsan oo muhiim ah oo joogto xaqiiqda marka ka hadalno laakiin waxay isku dayaan markastaba inay weerarf idheelaan it means weerarf waxa waaye waa in Bruniga counter attack la raadiyo qof ordayo loo tuuro in yaani loo raadiyo in yaani garbaha laga ciyaaro isku dayaan ayagoona dhaxda ka soo dhisin Manchester ayadoona gadaal laga soo dhisin oo dhaxda laga dhisin oo aan la sameeyay wax la yiraahdo waa tactical pass ama shax oo pass ah oo aan inta laga keenin oo ay labada dhinacba teamka dhanba ay teamwork ay sameeyeen oo wada shaqayn ay ka wada dhaxeen labada ciyaartooyda qadka dhexe ee ciyaartooyda gadaal damba iyo kuwa afka hore ka dhiilaba mar haddii ay 10 ciyaartooy 11kaas markii laga reebo Portugal 10 ciyaartooy aysan lahayn wada shaqayn waxa adkaanayo in markaasi ay gool dhaliyaan kooxdu waxay ku adkaanaysaa inay gool dhaliyaan kooxdu inaysan heli kareynin inay qabsadaan kubadda taas soo share gareyso ama soo launch gareyso oo ay tuurto isku daydo counter attack inaad ku raadiso sababtoo ah kooxdan kaleento ka soo horjeedo way ka qaadanaysaa Bruni tusaale ahaan maanta formka ay ku kala jiraan labada kooxood Manchester United iyo Manchester kooxda la yiraahdo Aston Villa
Unai Emery kooxdu wuu dhisay wuxuu ka sameeyay pack up ka gadaalo ayuu ka dhisay in kooxdu gadaal ay trashing ku sameyso qadka dhexe isla qabsadaan qadka dhexe iyo qaybta gadaalo markaas ay noqdaan ciyaartooy John Grayson oo team ka shaqeeyo way suurtagelaysaa marka baalashooda iyo sidoo kale ciyaartooyda afka hore ka dheesho inay markaas si wada jira ku wada shaqeeyaan way u suurtagelaysaa markaas in weerarkooda oo noqdo mid dhamaystirma ama ku soo dhamaada inay guul ay gaaraan ama gool ay dhaliyaan ciyaaryahanka tusaalaha markii dhaxda iyo garbahaba laga soo dhiso ciyaarta ee kubadda laga soo dhiso ciyaaryahan marka Oli Watkins marka way u suurtagelaysaa inuu gool dhaliyo xaqiiq marka kala hadlo way u suurtagelaysaa marka Man United maanta dhibaatada haysata waxay ka mid tahay marka ma awoodi karaan Pele iyo ciyaaryahanka kale ee garabka kaga dheelo iyo Watkins inay celiyaan Dalot iyo Masraoui xaqiiqda marka kala waa labada dhinac ee labada ciyaartooy joogto waayahay qadkan dhaxdan waxaa joogo nin la yiraahdo John Evans iyo nin la dhahayo Harry Maguire awood u lahaan karaa marka in weerarkan san dhaxda inuu soo dusiyo ee ka celiyaan ee blogareeyaan tusaalaha marka kala hadlo tiimamka kaleento oo waxaa joogo nin la yiraahdo Ake oo kaleento iyo waxaa isla dheelo Diaz Man City marka ka hadalno Arsenal marka kala William Saliba Gabriel Magalhaes joogaan يعني أنا توتنهام وكلنتو حاوجوني لي هذا روميريو يعيان كلنتو تصال مركز آدي أفضل ضحي إن يعني مركز أي وحول بقى أي حكميان وريهنا هذا سو ويرتم يسان أوسو أرضية إن أي مركز بلوغريانا بلوغ وديدان ويوصور تجلسه مركز هاري ماغواير إيفانس صورة الجلم إنه قن كرتامانتا وريهنا هذا شرط إلى يقان أستون فيلا إن أي مركز بلوغريان garbaha Bailey ma cili karaan ma laga cili karaa marka Nicola yiraahdo Masraoui iyo waxa ma cili karaan marka Dalot awood mu yeelan karaan inay celiyaan tusaalaha marka ay ka siiyo ragga afkar ugu dheelaha Nicola Marco Rashford kulamadiisa ugu dambeeyay ama last match-ka ugu dambeeyay ay dheeleen oo dheelay wuxuu keenay isku celcelis ahaan 8.6 waa ciyaaryahan wanaagsan xaqiiqda marka socoshada iyo soo noqoshada laga hadlayo waa marka ciyaarta iyo heesashadiisa labada dhinac ee soo tacticalkiisa oo haysto marka tacticalkiisa oo defensiga oo attacka iyo defensiga marka weerarkiisa wuxuu marka noqday ninka la yiraahdo Rashford weerarkiisa wuxuu noqday marka 56 ilaa 63 oo weerar ahaan waxa la soo barbardhigay ninka la yiraahdo marka Pau Torres asigana Pau Torresna difaaciisa iyo weerarkiisa markii la keeno weerarkiisa waa nin difaac kale dheela weerarkiisa marka tactic ahaan waa 46 iyo 63 waa qaybta tacticada oo markuu weerarka u aadayo ninka la yiraahdo Pau Torres ee kaga ciyaara Aston Villa qaybta difaaca tusaale ahaan Rashfordna waa qaybtiisa weerarkana waxay noqotay 55 63 waa macnaheedu isku celintiisa soo markaasi waa nin markaasi oo total ahaan oo keenay dhibcihiisa waa 8.6 markii la isku total gareeyo energy-giisa tactic-giisa tackliska passing-ka crossing-ga waxyaabaha markaas uu sameeyay celinta difaaca weerarkii baasaska uu saxay baasaskii uu qalday wixii dhan markii la isku tardaro waxay noqonaysaa 8.6 waa kulankii ugu dambeeyay oo dheeray ninka la yiraahdo Torresna asigana waxa soo dhan markii aygan laga soo tago wuxuu isku celiskiisu noqday 8 marka laba ciyaartooy oo formka kaga jirto waaye labada kooxood marka hadda ka hadlayno okay labada ciyaartooy marka tusaalahaan dhanka daafacashada ninka la yiraahdo Marco Rashford waa 53 dhibic waa 53 waa iyo 46 oo isku celinta ah labada qaybood markuu uu daafacanayo oo weerartamayo waxay noqonaysaa qaybtiisa daafaca tacticada uu isticmaalay waxay ahayd waa 53 oo qaybtiisa markuu daafacdo oo ceshanay markuu difaaca kooxda laga qabsado Banooniga oo soo daafactamayana waxay noqonaysaa 46 oo tacticadiisa han isku celis oo noqona ninka la yiraahdo marka Bailey oo defensigiisa ninka la yiraahdo Torres defensigiisa because maadaama ka ciyaaro qaybta difaaca markii Banooniga oo qabsado oo wax ka difaac la soo weeraro waxay noqonaysaa inuu markaasi difaaciisu waa 61 because waa ka difaacasho badan yahay ninkan Marco Rashford because sababtoo waa kala position kooda kala gedisan oo ah Marco Rashford inuu ka yahay ciyaaryahan weerar ah oo markuu soo deganayeen caawin oo ugu soo deganayo ciyaaryahanka garabka kala dhiilo inuu caawiyo
oo Bruno kala caawiyo la qaado markaas oo qaato oo la ordo marka waxaa haddana sidoo kale tusaale ahaan ninka ciyaaryahankan Torresna waa difaacashada waa 61 waay tusaale marka waxa uu dhanka weerarkiisana waa 33 waa Torres oo kaga ciyaara Aston Villa qaybta center back dambe qaybta dhexe ee qaybta dambe marka ciyaaryahanka ciyaaryahanadu tactical ahaantood waa intaas Premier League ahaanna waxay ku kala joogaa formka oo ah qaybta shanaad waa Aston Villa ay joogto Premier title-ka ay ka joogaan ayo Man United oo ayadana ka joogto qaybta 14aad kala horeyntooda marka tactical ahaan Chelsea sanadkan formkeeda ayadana markaas tusaale naga soo qaado asxaabta aad ba mahadsantii fadlan share gareeya followna hala dhaho page-ka oo hala follow gareeyo haddii aad follow tahayna asxaabtayda qiimaha badan page-ka hala ii share gareeyo si asxaabtiina ay u aragto si aan u helo asxaab fara badan barnaamijkan mar walba waxaan baaqidaadi doonaa kulamada iyo weliba ciyaaraha sida ay markaas iska hor imaan doonaan Chelsea tusaale ahaan ayagana maanta waxay dheelayaan wax la yiraahdo Premier League oo Nottingham Forest ee la dheeli doonaan ma awoodi karta marka kooxda Chelsea inay soo burburiso Nottingham Forest maadaama maalmahan ugu dambeeyay ay haysatay formka ugu fiicnaa ciyaaraha waxyaabo fara badan ay sameynaysay yani dagaal fara badan ay ku jirtay weerar fara badan macalinka marka wax badan oo isbedelay maadaama Evan Palmer kaliya oo haya ciyaarta haddana ay noqotay inay markaasi isku yimaadaan labada kooxood Palmer iyo weliba ninka la yiraahdo oo ku helay oo Man United kaga imaaday Sancho marka aad bay u fududaatay marka aad bay u fududaatay min Chelsea inay soo kabsato sababtoo ah rag dhalinyaro ah oo waxaa helay oo adag qaybta dhaxana waa ka dhisnaayeen afka hore xoogaa culays ka saarna waa aragtay ninka la yiraahdo oo dhacdhacowga ahaa dhibaatada fara badnaa iska qabay la yiraahdo Jackson sidoo ku soo baxay formka uu ku soo baxay inuu banooniyada qabto inuu banooniyada celiyo inuu markaas banooniyada tuuro oo siiyo ragga markaas weerarka aadayo waa form 90% ah waxa lagu leeyahay marka tusaale ahaan tacticalka marka aan ka hadlayn predictionka ama saadaalinta kulamada maanta la dheelayo Chelsea 100% waxa lagu leeyahay 70 inay badisi u badan tahay okay Nottingham Forest 100% inay macnaha ay macni 56 adeeg 50 inay badisi u badan tahay Chelsea 40% waxa lagu leeyahay 30 iyo jajab waxa lagu leeyahay 16 waxa lagu leeyahay estimated-ka waa draw inay ku dhamaato ciyaarta laakiin badinta waxa loo badiyay in Chelsea ay badin karto Nottingham Forest ay ka badin karto sidoo kale inta kulanka maanta dadkooda sugaya ayagana ah Manchester United iyo Aston Villa waxa la yiraahdaa 56 waa badi kartaa hala dhahay yani Aston Villa waxa badinaysa la dhahay Aston Villa 56 28 Manchester United badinaysa la dhahay 16 waa waxa laga yaabaa inay ku dhamaado draw ama bareejo ama barbardhac sidoo taqaan marka ciyaartu saadaalinteedu waa inta badanna waxaa diiradda la saaraya maanta oo kaleento in yani kooxdaas yaa badin karaa yaa guul leh yaa hore u socda yaa dhaqaaq leh yaa alis leeyahay marka aad baad u mahadsantihiin asxaabteyda qiimaha iyo qaayaha mudan fadlan dad nagu cusub tihiin sii share gareeya page-ka hala follow gareeyo ana la share gareeyo fadlan isku daya inay gaarsiisaan 10,000 oo follow bishan gudaheeda waxaan rabaa inaan gaaro 10,000 oo follow fadlan hala ii gaarsiiyo aad baad u mahadsantihiin asxaabteyda qiimaha mudan page-kan hala follow gareeyo hala sii share gareeyo commentiga iyo like-gana waa dhankiina wixii fakarkiina ahna commentiga inoogu soo reeba yaa badin kara si leedahiin aad baad u mahadsantihiin fadlan sii share gareeya barnaamijka hala follow gareeyo tan iyo inta dib ugu kulmi doono kulamada xiga waxaa la leeyahay waa saaxiibkiina Maxamed Abuukar Baariyo wadan leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.